maalinimo wanaagsan dhagaystayaal waa 20-ka bisha sagaalaad sanada 2021 ku soo dhawaada barnaamijkii xogta iyo xulashada wararka caalamka kaasi oo ku soo qaadan doono dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday xilliga lagu dhawaaqayo xukunka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ kaasi oo lagu baahin doono dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya ee muranka xoogga leh dhalisay. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shaaciyay taariikhda ay maxkamadda cadaaladda adduunku soo saari doonto xukunka dacwadii badda ee ka dhaxeeyay dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa baahiyay warkan la xiriira arrimaha dacwadda badda ee labada dal ku muransan yihiin. Mahdi Maxamed Guuleed ayaa yiri waxaan ogeysiinayaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed in xukunka dacwadii badda ee dalkeena kala dhaxeeyay Kenya ay soo saari doonto maxkamaddu 12 bisha Oktoobar ee fooda inagu soo haysa. dadka Soomaaliyeed ayaa rajo xoog leh ka qaba in maxkamadda cadaaladda adduunku Soomaaliya u xukumi doonto dhulka lagu muransan yahay. balse dowladda Kenya ayaa la ogeyn talaabada ay qaadi doonto haddii maxkamadda caalamiga ah ee ICJ Soomaaliya u xukunto dhulbadeedka lagu muransan yahay. dowladda Kenya ayaa horay u qaadacday inay aqoonsan doonto xukunka maxkamadda taasi oo loo arkayay cabsi ay ka qabto in Soomaaliya uga guuleysato kiiskani. wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in uu baaqday shir wada tashi oo ay lahaayeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliyeed kaasi ay u ballansanaayeen in uu magaaladaasi ka furmo maalinta bari ah oo taariikhdu ku beegan tahay 21-ka bisha September ee sanadkani. shirkaasi ay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu kaga arrinsan lahaayeen dardargelinta qabsoomida doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda dalka kadib khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. ila xogogaal oo ka agdhow madaxtooyada Puntland ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in shirkaasi uu baaqday kadib markii madaxweynaha Galmudug uu sidaasi dalbaday. shirkani oo 17kii bishan lagu shaaciyay war-saxaafadeed ay wadajir soo saareen madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa laga reebay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. arrintaasi oo dad badan ay la xiriiriyeen go'aan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo awoodiisa fulineed uu madaxweyne Farmaajo kaga xayuubiyay. xogta ay warbaahintu heshay ayaa sheegaysa in wadahadal dhex maray madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cali Kaariyo Qorqor iyo Ra'iisul Wasaare Roble kadib uu Qorqor ka codsaday dhigiisa Puntland Siciid Dani in shirkaasi la hakiyo. ilaa haatan lama oga waxa ay sida rasmiga uga wada hadleen Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweyne Qorqor. hase yeeshee kulankaasi ayaa horseeday in la baajiyo shirka ay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu uga arrinsan lahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. madaxweynaha Galmudug ayaa kamid ahaa shakhsiyaadkii isu xilqaamay inay dhexdhexaadin ka sameeyaan saraakiisha ugu sareysa dowladda Soomaaliya iyadoo dhinaca kalena loo arkayay inuu yahay shakhsi aad ugu dhow oo saaxiib la madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo tuhun xoog leh ku abuurtay dhammaanba axsaabta mucaaradka iyo shakhsiyaadka sida xooga u taageersanaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble.